gudoomiye ku-xigeenka guddida tacliinta sare ee Soomaaliland Maxamed Xasan Sheekh Muumin oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu beeniyay war laga baahiyay maalintii shalay warkaasi oo sheegayay in wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda iminkana ka mid ah guddida tacliinta sare laga joojiyay shaqadii guddidaasi. gudoomiye ku-xigeenka guddida tacliinta sare waxa uu sheegay gebi ahaanba in aan iyagu shaqada ka joojin karin xubin iyaga ka mid ah. tallaabooyinka waxaan jaamacadaha ka qabanay iyo waxa loo baahan yahay iyo sharciga oo sameeyno booliskii iyo agtii oo sharci ahaan aan isaga aan dhamaynayno waxaan arkay inuu wixii u booday meel isagu rabay oo uu wixii waxa laga joojiyay maxay ahayd lacagtii baa laga joojiyay oo la eriyay oo buugta deewa iska eriyay waxa weeyaan anagu ninka isku mid baan nahay waxa weeyaan labadayduba waxaan nahay member of commission baan nahay anu in kasoo ku xigeen haddana waxaan nahay moogtahay isku mid baan nahay labadaydu lacagteedu waa isku mid marka waxa weeyaan ma eri karna anagu mana lacagtana kama joojin karno laakiin aan waxaan ku yiri hadal aan official ahayn oo aaniyo gudoomiyaha halkan oo yiri waa la ii soo sheegay waxa weeyaan waa lacagtiisii baa la weydiiyay marka waxa weeyaan waxaan yiri ha imaado yani ha yimaado marka wax laga joojiyo ma jirto waxa weeyaan ha yimaado mar hadii la yiri yani waxa weeyaan soo shaqada ugu weyn marka waxa weeyaan waxaan isagu barbaaray oo si eriyay ee magaalada wareeriyay ee waxa weeyaan anu kuma aan taligaan dadku waxa moodayay dad wada moogtahay ummad ilaahay ka baqaysay inay dadku yihiin ayna waxa soo gelinayno inay moogtahay manaaci lil khayr dadka isku diray ee balaayada afuufa way ilaahay uu naga mamnuucay inaan balaayo afuufno inaan dad isku dirno wax ka sameeyno waranagu ma eriyi karno ninkani waxa weeyaan darajo saruus wadanka wahayay wasiir buu ahaa hadduu noo yimaadana halkii uma kala bilaabaynaa waxa weeyaan waa mid ka mid ah moogtahay toddobada commissioner ee halka ku joogdo maca gudoomiyuhuna uu ku jiro commissioner isbaa la leeyahay marka waxa weeyaan arinta waxba kama jiraan arintu sidaan anu u hadlay waa arin aan official ahayn oo aniga gudoomiyuhu yiri ha yimaado uu yiri oo lagu encourage gareynay inuu yimaado ama aan leenahay war inuu loo kaalay aan wadanka afacne ma garanaysa isaguna waxaan geliyay uu leeyahay su'aalaha waa weydiiyay waxa dhacay uu leeyahay war waxaas waxba kama jiraan ninkana ilaahay ka baqdaha waxa weeyaan iyo isla yardaha waa ceeb weeyaan waxaas waxa weeyaan anu hadii geesta kale gudoomiyuhu waxa uu raali gelin u diray Yuusuf Maxamed Cabdi oo ah xubin kamid ah guddida tacliinta sare wuxuu soo qaatay meeshii yareedo isagu u baahnaa oo buubuuriyo ujeedada uu ka leeyahay isagu marka waxa weeyaan raali ahaada wasiirkuna raali hayga ahaado waxa weeyaan arinta waxa weeyaan wax ka jiri ma jiro marka barakallahu fiikum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Maxamed Jaamac wararka warbaahinta SBC Hargeysa.